kulanti wacno wanaagsan dhageystayaal qodobada aad ku maqli doontaan ee habka hirsamo waxa ugu waaweyn qaxooti Soomaali ah oo si xun loogu dhaawacay duqeyn ka dhacday Yemen boqolaal aan muslimiin ahayn oo lagu anfuriyay masjid ku yaala Minnesota dhaqaalaha Trump soo galay sanadkii 2018 oo la shaaciyay dhakhtar lagu eedeeyay inuu sameeyay bukaano shaqaale u dhashay Russia oo lagu dhaawacay dalka Yemen iyo Mareykanka iyo Iiraan oo lagu baaqay inay wada hadlaan qodobadaas iyo qodobada kale ee aan idin sii qarinayna ay barnaamijkeenu ku maqli doontaan dhacdooyin sugan arrimaha la yaabka waxyaabaha kala duwan ee aad ku xiisaha badan intaba waxaad ka dhageysan kartaa barnaamijka habka hirsamo isla warbaahinta hirsamo barnaamijkan waa barnaamij aad u xiiso badan noqona qof inta badan ku tixan waa tahay dhageystayaal markale wacan oo wanaagsan waa sabti taariikhdan ay ku beegan tahay 18 bisha May sanada 2019 barnaamijka inta uu socdo si wada jir waxa idin warami doona haduu eeba karaale noqdo anigoo xamaada ah iyo waliba ismasituusi markaana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo fidsan aan ku reenay qodobada barnaamijka in qaxooti Soomaali ah oo si xun loogu dhaawacay duqeyn ka dhacday dalka Yemen hay'adda qaramada midoobay qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR waxay sheegtay inay aad ugu tiiraanaysan yihiin qasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray duqeymihii ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga Khamiistii la soo dhaafay ka geysteen caasimadda dalkaasi ee Sanca hay'adda UNHCR waxay sheegtay inay jiraan qaxooti ay dhaawacyo iyo waxyeelo ka soo gaartay duqeyntaasi warbixinta hay'adda UNHCR waxaa lagu muujiyay in haweeney Soomaali iyo gabadheeda ka mid yihiin dadka qaxootiga ee lagu dhaawacay isbitaalada ku yaala magaalada Sanca haweeneyda Soomaalida iyo gabadheeda oo kamid ahaa qaxootiga ku nool magaalada Sanca waxaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac culus xiriiriyaha samafalka ee dalka Yemen Lise Grande waxay sheegtay inay xanuunka la qaybsanayso qoysaska dhibanayaasha ah isla markaasna ay ka naxeen weerarkii bahalnimada ahaa ee la beegsaday shilkan argagaxa leh waa tiiraanyo mahadda leh waxaana ina loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo sharciga caalamiga ah ee samafalka aadanimada waa mid iska cad ay tiri Lise Grande ma aha markii ugu horeysay oo ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga duqeyn la beegsadaan dad qaxooti iyadoo la og yahay in ugu yaraan 32 qof oo Soomaali ah lagu dilay duqeyn ay diyaarad helicopter ah ay isbahaysiga leeyihiin la beegsadeen xilli ay ku safrayeen dooni marisay meel ka baxsan xeebta magaalada Xudayda ee dalka Yemen doonidaasi waxaa la socday 145 qaxooti Soomaali ah oo ku sii jeeday dalka Suudaan waxaana duqeyntaasi lagu dhaawacay 20 Soomaali ah si kastaba haatee in ka badan 275 qaxooti ah ayaa ku sugan gudaha Yemen kuwaasi oo in ka badan 90% yihiin qaxooti Soomaali ah waa hagaag dhanka kalena Mareykanka iyo Iiraan oo lagu baaqay inay wada hadlaan madaxa guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda dibadda ee dalka Iiraan Hashmatullaahi Falaxaat ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka iyo Iiraan inay wada xaajood ku yeeshaan dalka Ciraaq ama Qatar si loo qaboojiyo xiisadaha ka taagan xilli ay militariga Mareykanka dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gacanka Carbeed qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka iyo ku sheegay in labada dhinac waajib ay ku tahay inay ku wada hadlaan Ciraaq ama Qatar si loo soo afjaro xiisadaha colaadeed ee ka taagan labadaasi wadan baaqiisa ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dabciyay xiisadahaasi isagoo sheegay inuusan rajeynaynin inay dagaal ka galaan Iiraan Donald Trump ayaa waxa uu kale sheegay inuu doonayo inay Iiraan wada galaan heshiis cusub oo la xiriiro barnaamijyada nukliyeerka iyo gantaalada iyo taageerada militariga ee Iiraan ka wadaan dalalka Ciraaq Syria iyo Yemen markana muslimiinta ku dhaqan dalkaasi Mareykanka boqolaal aan muslimiin ahayn oo laga afuriyay masaajid ku yaala Minnesota qiyaastii 200 oo qof oo u badan dad cadaan ah oo aan muslimiin ahayn balse daris la ah masaajid lagu magacaabo Daarul Furuuq oo ku yaal gobolka Minnesota ayaa lagu martiqaaday kulan afur ah oo ay lahaayeen muslimiinta xaafadaas
afurkaasi ayaa waxaa iska kaashaday maamulka masaajidka iyo ururka islaamiga ee iskuulada magaaladaasi. ujeedada ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dadkaas loogu sharaxi lahaa waxa ay tahay bisha barakaysan ee Ramadaan iyo in laga jaahil bixiyo su'aalaha ay dadkaasi doonayaan in ay muslimiinta weydiiyaan. Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah maamulka masaajidkaasi ayaa ka hadlay ujeedada kulankaasi waxa ay ugu gol leeyihiin. waxa uuna yidhi kulamadan oo kale waxaa laga faa'iideeyaa in dadka xaafadda magaalada ama gobolka nala degan ay arkaan oo ay soo galaan meel masaajid ah oo ay muslimiinta bartaan su'aalahoodana lagaga jawaabo. saacad ka hor xilliga afurka ayay dadkaasi dariska ah la ah in masaajidka ay soo fariisteen goobta ciyaaraha ee masaajidka iyadoo todobadii qofba lala fadhiisiyay qof muslim ah oo u sharxa su'aalaha gaarka ah oo ay qabaan. maxamed shariif oo ka mid ahaa in ardayda barnaamijkan soo qaban qaadiyay waxa uuna BBC-da u sheegay su'aalaha ugu badan ee dadkaasi ay weydiinayeen. wuxuuna yidhi su'aalaha ugu badan ee dadkaasina weydiiyaan waxaa ka mid ah sidee u socotaan, sideed u soontaan, yaad u soontaan, muxuu yahay ilaaha aad aaminsantihiin. xafladana waxay naga caawisay in aan su'aalahaas oo dhan aan ugu jawaabno. gabdhaha ayaa sidoo kale arrintan ka shaqaynayay ayagoo dhankoodana la weydiiyey su'aalo kuwaas la mid ah isla markaana ay ugu jawaabayeen dadkii afurka ka soo qayb galay. kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda kaniisadaha ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Kurdis Diyan oo ah madaxa midowga kaniisadaha Minnesota ayaa waxa uu qabaa in kulamada noocan ah ee isdhexgalka ay horseedi karaan inay hoos u dhacaan falalka islaam nacaybka ah. arrintan ayaa ah mid dadka la isugu soo dhaweynayo, waa mid daris wanaag muujinaysa in aan wax badan ka ogaano diinta islaamka, ayuu yiri Kurdis Diyan. muslimiinta ayaa walwal badan ka qaba dhanka nabadgelyada inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, sida uu sheegay Maxamed Cumar oo ah maamulaha masaajidka Daarul Faruuq. bisha Ramadaan maadaama dadku ay masaajidku ku badan yihiin oo ay taraawiix u tukadaan, cabsida wadanka ka jirta aad bay u soo kordhaysaa. waxaan u baqaynaa in dadka oo tukanaya la soo weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee muslimiinta ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in kulamada noocan ay uga gol leeyihiin sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen isdhexgalka bulshada iyo in ay dadka aan muslimiinta ahayn ka wacyigeliyaan fikradaha nacaybka ku salaysan ee ay ka aaminsan yihiin dadka muslimiinta. dalalka reer galbeedka ayaa waxaa marar qaar ka dhaca weerar dad muslimiin ah lagu laayo, kuwaasoo ay qaadaan dad la sheego in ay necab yihiin islaamka. shaqaale u dhashay Raashiya oo lagu dhaabacay gudaha dalka Yemen. laba habeen oo u dhalatay Raashiya ayaa la sheegay in lagu dhaabacay duqeyn iyo isbahaysiga Sacuudiga ka geysteen caasimadda dalka Yemen ee Sanca. shaqaalahaasi waxay ka howlgalayeen xarun caafimaad oo ku taala magaalada Sanca ee gudaha dalka Yemen. dhinaca kale ugu yaraan 6 qof oo isku qoys ah ayaa lagu dhaabacay duqeymaha ay isbahaysiga Sacuudiga la beegsadeen dhismooyin ku yaala gudaha iyo weliba duleedka magaalada Sanca. telefishinka Al-Masira ee ay kooxda Xuutiyiinta leeyihiin waxay sheegeen in diyaaradaha isbahaysiga duqeeyeen dhismooyin ay dad rayid ah degan yihiin, inkastoo ay isbahaysiga sheegeen inay duqeeyeen goob ciidan. duqeymaha isbahaysiga ayaa yimid 2 maalin kadib markii ay daroonis ay Xuutiyiinta lahaayeen goobo shidaal ah oo ku yaala Sacuudi Carabiya. duqeymahaasi waxaa ka dhashay dab iyo khasaaro soo gaaray dhuumaha shidaalka gudbiyo iyo sida ay sheegtay shirkadda shidaalka Sacuudi Carabiya ee Aramco. waa tahay xamaadow markana haddaanu soo qabto inuu warbixinta dhankayga ugu dambeysay ee barnaamijka walow aan ku dhownahay qaybihii dambe ee barnaamijka heehaabka hirsamo ee warbaahinta hirsamo. dhaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Trump soo galay sanadkii 2018 oo la shaaciyay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sameeyay dakhli ah $434 milyan oo dollarka ah sanadkii 2018 sida ku cad warbixin uu ugu gudbiyay xafiiska anshaxa dawladda oo shaaca laga qaaday. lacagtaas ayaa wax yar ka yar dakhligii madaxweynaha soo galay sanadkii 2017 oo ahaa $450 milyan oo dollar. Trump ayaa dhaqaalahan ka sameeyay hantidiisa maguurtada ah sida hoteelo iyo daaro kirooyin loogu jiro oo uu leeyahay, taasi oo dib u soo nooleysay su'aalaha
ku saabsan in madaxweynaha uu lacag ka helayo dowlada ajnabi ah isaga oo ka faa'iideysanaya xilka uu ka hayo dowladda. Hotelka Trump International Hotel ee magaalada Washington DC ayaa waxa uu madaxweynaha sanadkii 2018 ka sameeyay 41 milyan oo dollarka Mareykanka. Si kastaba hoteelada in madaxweynaha ayaan faa'iido wada sameyn ayada oo hotelka Mar-a-Lago ee gobolka Florida oo xilliyada qabowga uu madaxweynaha ku nasto uu dakhligiisa hoos u dhaca 2.5 milyan oo dollar oo uu ahaa halka 22.7 milyan dollar sanadkii 2018 ahaa. Hotelka Trump ee Washington oo la furay 2016 isla markaana wax yar u jira aqalka cad ayaa waxaa aad u adeegsaday diblomaasiyiinta ajnabiga iyo madaxda shirkadaha. Arrintan ayaa dhalisay su'aalo ku saabsan in madaxweynaha uu saraakiil ajnabi ah lacag ka sameeyo isagoo magaciisa madaxweynenimo ka faa'iideysanaya, waxaana dadka dhaliila ay sheegeen in dad badan ay hotelkiisa u soo degayaan kaliya inuu leeyahay madaxweynaha. guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka Hihaabka Hirsamo ee kala socoteen warbaahinta Hirsamo. barnaamijkan kiisa xiga inta aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.